Isu soo baxan ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan masjidka Isbahaysiga Islaamiga ee ku dhow aqalka madaxtooyo ee Villa Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, wasiiradii hore iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen isu soo baxan roobdoonka ahaa iyo allabariga. Aqoon-yahano culamaa u diin haween iyo sidoo kale caruur iyagu wax ka barta dugsiyada Qur'aanka Kariimka ayaa iyagu ka mid ahaa dadkii isu soo baxanay ka qayb galay. Salaad roobdoona ayaa goobta lagu dugtay oo Ilaah loogu bariyay ummadda Soomaaliyeed in abaarta haysata uu ka dulqaado. Ugu horeyn meesha waxaa ka hadlay Sheekh Nuur Baaruud oo culamaa u diinka Soomaaliyeed ka mid ah iyo sidoo kale wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Cabduqaadir Sheekh Cali Bagdaadi, waxaana ay sheegeen in shacabka looga baahan yahay in ay isku gurmadaan si dhibaatada haysata looga baxo. waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah dhaqanka ka dhiganay wiil xun oo bistoolad wata intan muddo meel ay fadhido oo kale u iman nin buu madaxa bash ka siin aayar buu iska dhaqaaqi kuwii kale oo dhan wax dhaqaaqi ma leh. taas ma waxaad moodaysaan ilaahay aakhire inuu idiin dayn? waxaa weeye dadka saas dadka yeelaya waxaa weeye waa dembi weyn, waa akbarul kabaa'ir weeye. jariimada ugu weyn oo aadanuhu kasbado oo ah nafta muslimka ama mu'minka in la dilo baa si aan caadi ahayn baa loo daadiyey dhiiggii. ha loo daadiye waxaa la waayey dadkii gacmaha qaban lahaa dadkaas dhiigga daadinaya. rasuulkeennu salawaatullaahi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi lata'murunna bilmacruuf walatanhawunna cani ilmunkar walata'khudunna calaa aydi adaalim ow layusallita allaahu calaykum cadaaban humma tadcuuna falaa yustajaab. waxaad faraysaan wanaagga, xumaantaad iska reebaysaan qofka daalimka ee dhiigga muslimka daadinaya ee hantidooda burburinaya baad gacanta qabanaysaan. haddaydan yeelin dhibaato idin camimta alla idinku soo dejinayaa, ilaahay baad baryaysaan laydimana ajiibayo. ikhwa alacizaa, waxaad u jeedaan beled iyo baadiyaba waxa ka dhacaya dad abriyaa war dadka waxay u laynayaan aadan garanayn, waxay u dhibaataynayaan aydan garanayn, qofkay dilayaanna xataa aan garanayn. masaajidkii ku dilaya, waddadii ku dilaya, suuqii ku dilaya, hantidii muslimka baabi'inaya. ugu dambeyntii waxaa shacabka la hadlay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo u sheegay shacabka in marka ugu horeysa laga doonayo in madaxda dalka ay la xisaabtamaan haba ugu horeeyaan isaga iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo. waxa ugu muhiimsan oo maanta samayn karna waxay tahay inaan Ilaahay barino. waxaan rabaa inaan idin sheego sida kaliya oo dhibka uga bixi karno waxay tahay inaan aqbalno xaqiiqda. dhibka annaga asugan mas-uuliyadda ugu horeysana waxay saaran tahay aniga iyo madaxweynaha. maanta waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo dalkan dadkiisu waa inay la xisaabtamaan mas-uuliyiintooda. xisaabtantana waa in aniga iyo madaxweynaha nala ka bilaabo, annaguna waa inaan inta kale la xisaabtano. waxaa naga go'an oon ilaahayna ka baryaynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oo u dhaqi karna aan u dhaqno. sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo samayno. marka aan aqbalnana aan ka heshiino sidii aan uga bixi lahayn. wakhtigii xoolaha waddanka la dhacayo way dhammaatay, wakhtigii la isku xadgudbaayo way dhammaatay, wakhtigii albaabada laydinka xiran jira way dhammaatay. wakhtigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabtanka. dibadbaxan ay isugu soo baxeen dadku ee roobdoonka ahaa ayaa toddobaadkan waxaa shaaciyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dadkii ka qayb galay ayaa waxaa la arkayay iyaga oo walaalahoodii dhibaataysan alla uga baryaya in dhibaatada haysata uu ka dulqaado. Xasan Maxamed Aweys, TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Jubbaland, Muqdisho.